raha wadanka Ciraaq wuxuu cambaariyay dilka General Qasim Suleimani kaasoo diyaaradaha Mareykanka ay duqeyn ka geysteen wadankaasi Ciraaq ay ku bartilmaameedsadeen ra-iisul wadankaasi Ciraaq Haydar Abdallah ayaa cambaariyay dilka General Qasim Suleimani kaasoo Mareykanka u adeegsaday duqeyn dhanka cirka ah oo generalka oo ahaa madaxa cutubyo kamid ah ciidanka ilaalada kacaanka dalka Ciraaq oo dalka Iran ee loo yaqaan Qudus waxa uu ra-iisul wadankaasi Ciraaq uu sheegay in weerarka duqeynta uu ahaa mid horseedi kara dagaal halis ah oo ka dhaca bariga dhexe gaar ahaan sida uu sheegay saameyn weyn ku yeesha Ciraaq waxa uu sheegay in Ciraaq saaxiib dhow leeyihiin Iran ayna labada wadan ay ka dhaxayso calaaqad aad u wanaagsan laakiin duqeyntan iyo waliba howlgalka lagu dilay madaxii kacaanka ee Iran ay keeni karto khatar u horseeda labada dal oo xumaada xiriirkooda ugu dambeyn sarkaal ka tirsan militariga wadanka Iran waxa uu sheegay in Israel ay mardhow barooran doonto sida uu sheegay warbaahinta sarkaalkan ka tirsan militariga wadanka Iran waxa uu sheegay in Israel ay ka shaqeyn doonaan sidii ay u wajihi lahayn qeyladaan xoogan kaga imaan lahayd afayeenka ururka isbedel doonka islaamiga ee Iran kaasoo magaciisa lagu soo koobay Rajab Sharif waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Iran ba ay ka heli doonaan jawaab kulul oo ku saabsan wixii dhacay maanta Mareykanka iyo Israel waxa ay galeen dambiyo waaweyn waxayna heli doonaan jawaab kulul ayuu yiri mar uu la hadlayay TV-ga wasiirka gaashaandhigga Mareykanka waxa uu sheegay in Qasim Suleimani ay ku dileen duqeyn dhanka cirka ah ee meel aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha magaalada Baghdad caasimadda dalka Ciraaq uu ka dhacay warbixinta dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku guuleysatay in markii ugu horeysay la ansixiyo 20 mudane oo ka mid noqonaya baarlamaanka maamulka Galmudug kuwaas oo ka soo galay dhanka ururka Al-Sunna wal Jamaaca 20kan xildhibaan ayaa waxaa maanta aqbalay ama ansixiyay guddiga farsamada maamulka Galmudug ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay maamusho waxaana ay sheegeen in maalmaha soo socda sidoo kale lagu dhawaaqi doono 69 mudane oo ka dhiman xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo farsamada maamulka Galmudug Cabdinaasir Geelle Cilmi ayaa sheegay in 20ka xildhibaan ee ururka Al-Sunna wal Jamaaca ay soo gudbiyeen maanta la aqbalay kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya iyo guddiga ay wadatashi arrintaasi ay ka yeesheen isagoo sheegay in hadda baarlamaanka Galmudug ay ka dhiman yihiin oo kaliya 69 mudane waxaan halkan ka sheegaynaa maanta aan hadanahay guddigii maamul dhisidda iyo doorashooyinka Galmudug in aan liiskaas aqbalnay liiskaas oo soo maray dhammaan shuruudihii la iska rabay ka mid noqoshada maamul goboleedka Galmudug xildhibaanadiisa intaas markii laga tago waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u jeediyo cid walba oo ka soo qayb qaadatay in aan maanta meeshaan joogno imaano in heshiis laga gaaro waxyaabihii khilaafaadkii jirjiray in muddaba soo ragaadinayay maamul goboleedka Galmudug waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa qaybtii ay ka soo qaateen nabadeynta iyo maamul dhisidda iyo bulshooyinka Galmudug abaalka iyo wanaagga ay ku leeyihiin xulmadiinka Ahlu-Sunna wal Jamaaca ayaan si gooni uga mahad celinaynaa waxaan kaloo mahad celinaynaa dhammaan bulshada reer Galmudug qaybaheeda kala gedisan oo ugu horeeyaan odayaasha dhaqanku oo ayaguna qayb weyn ka soo qaatay aqbalayna in maaragtay arrintan ay ku dhamaato xal nabadgelyo oo ayagoo fiirinaya danta iyo maslaxadda ummadda reer Galmudug waxaan mahad kale u jeedinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya oo ayaduna qayb muhiim ah oo libax ka soo qaadatay in ay maanta meesha aan marayna aan soo gaarno iyo dhammaan cid walba oo lug ku lahayd maaragtay insaan ay wuxuu dhacaan waxaan rajaynaynaa hadduu alla idmo in wixii ka dambeeya maadaama in muddo ahba aan u soo xayirnayn isku soo dhaweynta iyo wada xaajoodka iyo in arrintan xal nabadeed lagu dhameeyo waxaan hadda wixii ka dambeeya aan gudageli doonaa dhammaystirka inta noo dhiman iyo xulista xildhibaanada noo haray ee 69ka xildhibaan ah oo aan rajaynaynaa haddii alla idmo inaan sida ugu dhaqsiyada badan aan ku soo dhamaystirno madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo soo gudbiyay 20ka xildhibaan ee ururka Al-Sunna wal Jamaaca dhankooda laga soo xulay ee qaybta ka noqonaya baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay dadaal badan ku bixinayso dhismaha Galmudug isagoo sheegay in xildhibaanadan
oo u rajeynayo inay u adeegaan deegaanada maamulka galmudug maadaama ay soo xuleen culamaa udiinka ahlusunna wal jamaaca. dadaalka dheeraadka ah ee dawladdu ku bixinayso arrinkaas ayaa uu dawladana uga mahadcelinaynaa. waxaan kale u mahadcelinaynaa beesha caalamka oo iyaduna door ka qaadanaysa taageeridda iyo Soomaaliya oo dhan inay hore u socoto ku taageeraya maamul goboleedyada ku taageeraya galmudug sidii ay uga dhalan lahayd dawlad goboleed loo dhan yahay ku garab taagan ayaan rajaynayno inay sii garab istaagnaadaan intii ay lugaheedu uga istaagto. waa u mahadcelinayaa guddiga xildhibaanada sharafta leh oo kuwii ugu horeeyay oo la qabtay oo shuruudihii buuxiyay 20ka iyakana waa u mahadcelinayaa in ay noqdaan kuwii xilkooda u guta si wanaagsan oo waafaqsan ilaahi subxaanahu wa ta'ala wuxuu raadiga ka yahay. wixii مثلا بشريعة الإسلام aan ku banaanayna hadda qofna awalana ku boorinayna wixii sharciga islaamka ku banaan oo sharciga islaamka oo raadi ka yahay oo ilaahay cabsidiisa ku dheehan tahay waa waxa aan ku hormari karna way marka aan ilaahay ka cabsanaa aakhiri adduunba noo hagaagayaan. 20ka xildhibaan ee maanta guddiga farsamada iyo doorashooyinka galmudug ay ka aqbaleen ururka ahlusunna wal jamaaca waxaa horey uga dhashay cabasho badan oo ay ka muujiyaan qaar ka mid ah beelaha deegaanada maamulka galmudug taasoo sababtay in xilligan qorshaha dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ka wado magaalada Dhuusamareeb ay ka soo horjeestaan inta badan deegaanada galmudug. Puntland waxa ay maanta wafdi u dirayaan gobolada Sool iyo Sanaag. wafdigaas waxaa horkacay wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi xilli goboladaasi maalmihii dambe laga soo sheegay rabshado. Cabdiqaadir Jakarta ayaa dhameystiraya. wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhawancad ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay tagaan deegaano ka tirsan gobolka Sool halkaas oo qorshooyin badan maamulka Puntland uu ka leeyahay. wafdiga ayaa waxa ay tagayaan deegaan lagu magacaabo Boocame oo ka tirsan gobolkaas waxaana ujeedka safarkooda lagu sheegay in halkaas ay ka dhisayaan golo deegaan oo markaasi ay dhammaan u sameeyeen dadka ku nool deegaankaas. deegaanka Boocame ee gobolka Sool ayaa tobaadii la soo dhaafay waxaa ka socday qabanqaabada dhismaha golo deegaan oo ay wadaan qeybaha kala duwan ee bulshada deegaankaas. wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhawancad iyo xubnaha la socda ayaa la filayaa inay kulamo la qaataan odayaasha iyo waxgaradka deegaanka iyagoo kala hadli doona sida ugu macquulsan ee loo sameyn lahaa loo dhisi lahaa golo deegaan oo yeesho deegaankaas. maamulka gobolka Sool iyo wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa si wada jir ah lagu wadaa inay uga shaqeeyaan dhismo golo deegaan kuwaas oo laga soo kala xuli doono beelaha kala duwan ee ku dhaqan deegaankaas. Puntland ayaa waxay kula loolamaysaa deegaano ka tirsan gobolka Sool Somaliland oo dagaal siyaasadeed iyo waliba mid amni kula jirta Puntland waxaana tiro ka dhowr jeer ah deegaano ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag ku dagaalamay ciidamo kala taabacsan Somaliland iyo Puntland walow sanadkii la soo dhaafo ee 2019 oo wadoona sanadihii hore ee 2018 iyo 2017 oo dagaalo culus deegaano ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag ay ku dhaxmareen ciidamo kala tirsan Somaliland iyo Puntland. waxaana madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo dhowr mar ku celceliyay in marnaba uusan raalli ka noqon doonin in taaka ka mid ah deegaanada Puntland ay ku soo xadgudbaan Somaliland. dhanka Somaliland dhankoodana ay sheegeen in aysan ogolaan doonin in taaka ka mid ah deegaankooda oo ku soo xadgudbo maamulka Puntland. dowladda Kenya waxa ay sheegtay in xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab ay ku direen gobolka Lamu. warbixin ay soo saareen booliiska sidaas lagu shaaciyay. Shukriya Sidamasiris. ciidanka difaaca wadanka Kenya ee KDF ayaa sheegay inay dileen 4 ka tirsan Al-Shabaab sidoo kalena ay qabteen mid nool. howlgalka ayaana ka dhacay deegaanka ee Nyungora oo ka tirsan gobolka Lamu halka oo shalay kooxo hubeysan ay ku weerareen gaari bas ah oo ku sii jeeday Islaamu. taliyaha ee booliiska gobolka Lamu ayaana sheegay in howlgalka uu daba socdo weerar shalay gelinkii dambe ee ka dhacay Lamu oo lagu dilay 3 qof oo shacab ah.
kooxda al-shabaab ayaa weerartay bas ee ka baxay ee Bombaaso una socday Lamu halka oo ay ku dileen 3 qof oo shacab ah ayuu yiri taliyaha booliiska gobolka Lamu. ciidamada Kenya ayaana sheegay in howlgalka uu ahaa arsashada weerarkii baska isla markaana lagu guuleystay sida ay hadalka u dhigeen. dagaalamayaasha al-shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda weerarkii shalay ee ka dhacay Lamu kama hadlin sheegashada Kenya ah inay dileen xubno ka tirsan al-shabaab. al-shabaab ayaana kordhiyay weerarada ay ka fulinayaan gudaha wadanka Kenya waxaana dowladda Kenya ay sheegtay inay u diyaar garoobayaan ka hortaga weerarada uga yimaada al-shabaab. madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare magaalada Beledweyne waxa uu ka bilaabay kulamo uu doonayo inuu kaga hortago mooshinka asaga laga wado ay abaabulayaan maalmihii dambe xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle. waxaa soo baxay macluumaad ku saabsan in khilaaf xoogan uu soo kala dhaxgalay gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Hirshabelle iyo waliba madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa bilaabay in kulamo uu la qaato xildhibaanada wasiirada u badan iyo waliba siyaasiyiin badan halkaasi ka soo jeeda asaguna kala shiraya qorshahan. hase yeeshee waxaa eedan culus loo jeedinaya gudoomiyaha baarlamaanka oo ay qaar ka mid wasiiradu ku eedeynayaan xildhibaanada ah in asaga dhankiisa oo ka wada abaabulka mooshinka sida uu sheegayo wasiirka dib u heshiisiinta maamulkaasi galmudug waa maamulkaasi ee Hirshabelle sidoo kale ah mudane ka tirsan baarlamaanka isagoo ku eedeeyay gudoomiyaha baarlamaanka in Muqdisho uu ka wado ololaha mooshinka madaxweyne Waare. dhibta jira horta waxay tahay mooshinkaas wax ka jira ma lahan wuxuu ahaa wax la yiraahdo fabricated waa la soo abaabulay oo dad ayaa geed fadhi u ahaa dadka geed fadhiga u ahayna waa la yaqaanaa waxa ku jira wasiir federaal ah waxa ku jira dad maaragtay ugu sareeyo shanta ugu sareyso maaragtay dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ka tirsan haddii aan carabka ku sii dhufto yani waxa geed fadhi u ahaa gudoomiyaha Cismaan Bar ayaa geed fadhi u ahaa. waxyaabaha aan soo jeedinayna ka xildhibaan ahaan waxay tahay waxaan leenahay dastuurku aan leenahay aan ku dhaqano dastuurkeenana ma qabo in la sameeyo wax la yiraahdo corruption in la sameeyo waxyaabaha hadda gudoomiyaha oo ku dhaqmaayo oo inuu maaragtay mooshin geed fadhi u noqdo aanan jirin oo mooshinkaas xataa oo ku jiraan xildhibaano aanan saxiixin oo dhowr xildhibaan inta loo yeeray la yiri maaragtay adika soo sameeya wax la yiri waayo. waxaan leeyahay marka xildhibaanada maaragtay dowlad goboleedka Hirshabelle inay isku duubmaan waxyaabahaas oo kalena laga foojignaado annagana aanan nala gadanin ayaanan u ekaanin dad for sale ah oo la iibsan karo. waxaan leenahay mandate aan leenahay dastuur aan leenahay kala dambeyn aan leenahay yani maaragtay inaan ku dhaqanaa mandate-keena يعني قدوميها وحيابها كل ما ينوى غير شرعي يعني مارت إنه هذا وجوه حمر وجوه مارت إنه وضع هذا السيو أو ضد أو لفريسنا يقولوا وزير شيء وزير أو فدرال كترسن وأيجا نفتر كذا مارت عن لا يحي وزير كدبوشي سنتا معمول كهير شباب وزير بدنا يا كوسق مقالة بلد وين حرنته قبل كيران وحنا هالكاس وججان سدي أي أسا أفكار الحين موشين كان madaxweyne Waare laga wada khilaafka ayaa u muuqda mid saameyn weyn ku yeeshay hogaanka ugu sareeya maamulka Hirshabelle kuwaas oo kala fadhiya magaalooyinka Beledweyne Muqdisho iyo Jowhar. booliiska Cabudwaaqna waxay faahfaahin dheeri ka bixiyeen howlgaladii ugu dambeeyay sanadkan ka soo gudbay 2019 laga fuliyay magaalada Cabudwaaq iyo waliba shakhsiyaadka la soo qabtay gaashaale Nuur Maxamed Cilmi taliyaha booliiska degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud waxa uu sheegay inay ku guuleysteen waxyaabo badan oo ku saabsan xasiloonida gobolka gaar ahaanse degmada Cabudwaaq waxa uu sheegay inta ciidanka isku dhafka ah Cabudwaaq waa ciidamo isku dhaf oo galmudug ah laga howlgeliyay halkaas inay ku guuleysteen xasilinta ayna jiraan shakhsiyaad badan oo gacanta lagu soo dhigay baaritaan lagu sameeyo dadka aan la garanaynin oo deegaanka ku cusub ama dibka yimaadka ah waxa la sameeyaa in rondooyin ama batuuliyo waxa loo yaqaan la sameeyo ay shaqeeyaan checkpointiyana la dhigo checkpointiyadu waxay noqdaan checkpointiyada guurguura iyo kuwa rasmiya runtii kuwa rasmiga ahuna waa yaalaan meelo dhimanuna waa jiraan oo wadooyinka Cabudwaaq soo galaahay tiro kooban ku sameeyay ilaa iyo 48 wada soo gashay Cabudwaaq 48 wado oo soo gashana markii aan fiirinay inaan dhamaantood awood loo heli karin in la xiro oo control la dhigo waxaan ka qaadanay inaan dhigno wadooyinka ugu muhiimsan ee ay mudan tahay in la dhigo controlada ay ugu badan yihiin kuwa xaduudka xageeda ka yimaado waa la isku dhafay ciidanka booliiska ee dowladda